wadadani oo ah mid ay tayadeedu sareyso isla markaasna faa'iidada horumarineed ee laga helayo ay u dheer tahay bilic iyo qurux ayaa isku xidhi doonta Faafan iyo Goljanno wana wajigii koobaad ee laamida isku xidhaysa Goljanno dhagax madow saga garbo ilaa iyo dhana wadadani oo dherer ahaan dhan 55 kilomitir ayaa ka soko wadada caadiga ah ee loogu talagalay in ay maraan gawaaridu ayaa markaad marayso tuulo hoosaadyada u dhaxeeya Goljanno iyo dhagaxle waxay indhahaagu qabanayaan baarkino ama goobo loogu talagalay inay istaagaan baabuurtu taasi oo ah mid ku cusub guud ahaan deegaanka Soomaalida iyadoo hadda ka hor loo sameyn jiray oo kaliya magaalooyinka iyo degmooyinka isla markaasina ay tani ku timid la xisaabtan kormeer iyo dabagal ay ku sameynayeen xukuumadda deegaanku oo ay dheereed isxilqaan ay sameynaysay shirkadda gacanta ku haysa wadadani awal aadan iyo dhuux yuusuf waa geel jirayaal aanu ku kulanay baadiyaha u dhaxeeya lafmareelay iyo gollibaax gaar ahaan wadada laamida ah waxayna aad ula cajabeen quruxda iyo meeqaamka laamida wadadani nidaamkay leedahay iyo istiraatiijigay leedahay iyo raaxaday leedahay iyo dhibaatooyinkii la soo maray kolkaanu ka fikrad qaadanay waxyaalo badan baan iska tusnay halkaan joogno waxa la yiraahdaa lafmareelay baa la yiraahdaa lafmareelay iyo jigjiga aanu lugtu afar habeen bay u kala soconaysay imikii haatana hadda halkaan lafmareelay aan taaganahay geeliga haddaan ka dhaqaaqo galabta oo jigjiga taga haddana intii faan ku soo noqonaya halkaa de maxaa mahadaale dawladda dhistay iyo ilaahay baa mahadaale nabadgelyada waasica ilaahay baa nasiiyay imikii haata dhulkan buuradha dheer buu ahaa libaaxa gali jiray daanyeerka ku noolaa dadku nolol muna ku mari jiray meel laga cabo ma lahayn meel aad gaari u raacdo ma lahayn dhibaata haday kugu timaado meel loogu qayliyo ma lahayn ruuxa halka macnaa ku bukooda halkiisa aan ba lagaga ala sugayo quruxdeeda iyo qiimaheedana waa ka aragto qarrida iyo sida loo kala gooyeen waa ka aragtay meeshii jiiraha dheer la mari jiray waa ka soo wadarta faa'iido ay leedahay maanta anagoo socdaal ku jiro oo baaydeeda ahaan hadda marayna marka gaariga aan damacno inaan fuulo waan raaci karaa xagga dambaan kaga boodi karaa sida qarrida ama loo kala jaray ama loo hagaajiyay waad yaabaysaa marka sidaas horta alxamdulillah rabbil caalamiin waxayna sidoo kale qabaan in guud ahaanba adeegyada horumarineed ee sida caafimaadka biyaha waxbarashada iyo wixii la midka ah ay ku xidhan yihiin in la helo wado iskoolkii wadadii buu ku xidhan yahay caafimaadkii wadadii buu ku xidhan yahay dee meel aan jid lahayn oon laami lahayn oon baabuurtu soconaynin oon shaqaalihii soconayn dee iskuul iyo caafimaad iyo waxbarasho midna ma taalo dadku dad indha go'an oo jahli ah oo xooluhu raacoon la meeqaana weeyaan laakiin eega waa fursad ilaahay ina siiyey waan ka faa'iideysan karaynaa sidaan anigu arko wadada aad bay u fiican tahay horumarka si fiican baa loo gaaray ilaahay hay noogu sii siyaadi ilaahay hay noogu sii siyaadi kaftan wadaag ku saabsan caabuqa coronavirus-ka ayaa sidoo kalena dhex maray ciwal iyo dhuux horta aad baa mahadsantiin waxaa jira cudur saameeyay adduunyada oo dhan coronavirus baa la yiraahdaa bal ka isaga ma maqasheen oo maxaad fikrood ka qabtaan waan maqlay hadda wuxuu hayana maana arag inuu iska caafimaad qabnaa annagu waan iska caafimaad qabnaa hadda waxaan ka nidhi gobolka Jarreed wuxuu hayana maana arag sax asal laakiin wuxuu in la iska ilaaliyo sabaha badan cudur dilaa maadaama yahay in la iska ilaaliyo weeyaan wuxuu hayana Allah ka caafiyo amiin maadaama hadda geel aad raadinayseen bal an yar istaagno maadaama geel eega raadinayseen baadida bal baadida xageed isdhahaysaan marka baadida aad weydaan oo kale iyo seed ku heshaan hadda dayday baan nahay eega waxaan daydaynay 4 caana eega 4 caana maal baan daydaynay 4 caana maal bal ma noo yar fasili kartaa 4 caana 4 caana maal waxa weeyaan xoolaha habeenkii waa la maalaa aroortiina waa la maalaa marka qofka la isu geeyo maalitaanka xoolaha la maalayo yaa caana maal la dhahaa afartii waqtiga xoolaha la maalayay yaa la dhahaa marka 4 caana maal xagan baan lagu sheegay miya 4 caana maal ma hadda iyaga wax noo sheegay wali ma hayno waa baadidii baan diidayna صح أنا وياه ولا لي أد بعد ما سنتين إن شاء الله وحن نرجعنا يا مدام ووضع أنه كوكلنا بعد أن إنه إلهي نسدوه برشة ونكسون wadadani ayaana noqonaysa wadadii ugu quruxda iyo meeqaamka badneyd abid ee laga hirgeliyo gudaha deegaanka Soomaalida taasi oo maraysa buuraley badan iyo dhul hawd ah sidoo kalena shacabka degmada Goljanno ayaa xusay dhibaatooyinkii hadda ku hor ka haystay jid la'aantii haysatay waagi hore aanu soo mari jiray ilaa 2 maalmood baanu jijiga xageeda yaanu sii mareyno waxaanu dib weyn baanu aad u qabnay awal horna wadooyinkii aan mari jiray malqaqa inta
halka intii laga leexdo oo yaanu malqaqa la sii marayay meel buuraley ah ama sadhiiqa ah halkaasaan waxaanu kaga dhexi jirnay dhagax maxay goray baanu ka leexan jirnay halkaasaanu mari jirnay dhib weyn baan qabi jirnay oo xun oo aad u xun oo wadaduna waddaha dee annagu aan gacantanoodan ku samaysano oo dhagaxaantu aan ka leexleexinay ahayd habeenna yaanu sii dhaxaynay deegaankan wuxuu soo maray halkan iyo waxaan dhihi karaa jigjigoo kale marar 5 habeen loo dhex jiraa jirta oo meelahan ay dhiiri noqon jirto baabuurtu 5 habeen ay iska fadhin jirta dhibaatooyin badan oo waddo xumada aan soo maray waxayna aad u bogaadiyeen jidkani laamida ah ee isku xidhaya Faafan iyo Goljanno oo ay kaga reesteen wadadii dheereed ee ay hadda ku hormari jireen laami ka adag oo sida loo dhisay rooga oo kale weeyaan yaan ku masalaya sababtoo ta makiinad baa dhigo kuwa kalena waa haween waxa lagu shubaaba booyad baa ku shubta sida daraadeed wadada aad u wanaagsan tayadeeda iyo waxeeduba u wanaagsan yahay weeyaan wadadani oo isku xidhaysa caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyo degmada Goljanno ayaa guud ahaanba dhamaystirantay wadadani waxa ay ka soo bilaabataa magaalada Dhagaxleh waxayna markaasi si toos ah u galaysaa degmada Goljanno wadaduna waa halbowlaha koobaad ee markaasi lagu gaaro guud ahaanba horumarada kale ee asaasiga u ah nolosha bulshada Cabdirasaaq Daaja SRTV Gol Libaax oo ka tirsan degmada Goljanno